بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة يالي دقستيال كسو دوادا مركلة جانل كنغا سويال تيوب إن شاء الله عاوة وحان هذا الكهالكان إذي كغسو جيدين يا هالكان إذي كغسو جيدين يا دل له دستور عن قرنين سيدي دل كاسو إسوغو معمولان دستور عن قرنين إن شاء الله عاوة دل كاسي عين فاهين دونا إن dad badan waxay isweydiinayaan sidee dastuur aan qornin la isugu maamuli karaa marka insha Allah caawa arintaas ayaan halkan aan insha Allah ka gali doonaa iminkana ku soo dhawaada barnaamijkii oo inoo bilowda dalal badan oo caalamka ka tirsan ayaa isku maamula dastuur qoran kaasi oo udubdhaxaad u noqda qawaaniinta sharci ee dalka iyo xuquuqda dadka haddaba maxay tahay sababta waddanka UK aanay u lahayn dastuur qoran su'aalaha iyo dooda ku saabsan in UK aanay lahayn dastuur qoran waxay soo ifbixeen marar badan oo dalka ay ka dhaceen jahwareer xagga siyaasadda iyo dhacdooyin u badnaa sharci loo laabto waxaa ugu weyneyd horantii bishii Abriil ee sanadkan markaas oo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ku dhacay cudurka coronavirus isla markaana la isweydiiyay in haddii uu cudurka ka bogsoon waayo waxa dhici doona inkastoo aanu jirin qaanuun qoran oo loo raaco arintaasi haddana waxaa dadweynaha loogu niyad dejiyay in wax u dhigma xeerbeeg ay go'aanka leedahay oo waxaa xilka si ku meel gaar ah u qabtay xoghayaha arrimaha dibadda Dominic Raab kaasi oo darajo ahaan ah xoghayaha koowaad waxaase jirtay aragti kale oo ah in haddii ay xaaladda ra'iisul wasaaruhu ka soo reyn weydo ay golaha wasiiradu qof iska dhex dooran doonaan kadibna boqoradu weydiisan doonto in qofkaasi uu soo dhiso dowlad cusub sida uu qabo macadka Institute for Government ee daraasaadka sameeya ra'iisul wasaaruhu waxay shaqada xafiiska sii wadayaan ilaa uu dhimasho ku timaado ama iscasilaad hanaanka sharci isku xukunka UK wuxuu ka mid yahay kuwa dunida ugu faca weyn waxaa jira dukumentiyo loo cuskado qaanuun ahaan oo xilliyada qaar lagu macneeyo dastuur kuwaasi oo soo bilowday 1215 markaas oo raggii awoodda lahaa ee baronisku ay ku qasbeen boqor John in uu aqbalo xeerka loo yaqaan Magna Carta ama xeerkii weynaa ee xurriyadda England kaas oo xadidayay awoodda boqorka dhigan in uu u hoggaansamo xeerka Magna wuxuu kaloo ka macno iyo in wixii xilligaasi ka dambeeyay dadka xukunka haya aanay sameyn karin wax kasta oo ay doonayaan sidee dalka sharci loogu hagaa haddii aanu jirin dastuur qoran waayaab Soomaali oo aan maanta dastuur u qorneen maxay fari lahaayeen ayagoo dastuur u qoran yahay iyo sidaan dastuurku ugu tumanayaan bal meeshaan aynu aragno sidee dal sharci loogu hagaa haddii aanu dastuur qornayn mid ka mid ah aqoon-yahanada bartay siyaasadda UK si weyn ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa sharaxaya wuxuuna leeyahay dalka UK ma leh dastuur qoran laakiin wuxuu leeyahay qodobo badan oo dalka lagu hago sida aad la socotaan dalkani waa dimuqraadi intaas oo xildhibaan ayaa la soo doortaa 5 sanaba mar dawladda ayaa markaasi ku guuleysata doorashada iyaga oo markaa dalka la wareega marka baarlamaan cusub ayaa sameysma baarlamaankaas cusub marka ugu horeysa sharciyo ayuu sameynayaa sharciyadaasi uu sameeyo ayaa dalka lagu hagayaa laguna dhaqayaa bal meeshaan fiiriya dastuur qoran ma jiro markii baarlamaanka la soo doorto baarlamaankaas ayaa wuxuu sameynayaa qaanuun iyo sharci sameynayaa sharciga iyo qaanuunka markaas uu baarlamaankaas sameeyo ayuu waddanka lagu dhaqayaa berita markuu baxana
mid ka dambe yimaado ayaa asagan samayn doona wuxuu asaga sameeyay un baadan dalka lagu hagayaa waa dal noocaas marka kulay waxaan filayaa Soomaali maalin waxay doonto iska samaysan laheedo nin wala wajigiisa uu ku buuxsado marka ingiriisku waa dal aad iyo aad u yar badan maxay yihiin dhibaatooyinka iyo faa'iidada dastuur aan qornayn anaga hadaynu nahay Soomaali waynu garan karnaa waayo ayagoo dastuurka qoran yahay oo ku meel gaar u yahay baan sidaan doona ka yeelanaa haddaan lahayn wax badan baa dhici lahaan filayaa bal meeshan aynu aragna hadana maxay yihiin dhibaatooyinka iyo faa'iidada dastuur aan qornayn dastuur aan qornayn ayaa abuuraya laba arin oo saameyn leh oo loo fasiran karo dhibaato iyo faa'iido marka hore way adkaanaysaa in la ogaado waxa dhabta ah ee dastuurka saxda ah uu yahay tan labaad waxay tilmaamaysaa inay ka sahlan tahay in wax laga bedelo dastuurka UK si ka duwan dalalka kale ee leh dastuurka qoran sababtoo ah xeerarka dambe ayaa waxay wataan dukumiintiyo leh sharci sare oo ka dhan ah sharciga qaanuunka caadiga ah iyo talaabada dawladda lagu tijaabin karo waana wax la bedeli karo oo kaliya iyada oo loo marayo hab faahfaahsan dabacsanaanta dastuurka boqortooyada UK waxay ka muuqataa tirada badan ee dib u habeynta dastuurka ilaa 1997 oo ay ku jirto baabi'inta inta badan asxaabta dhaxalka ah ee aqalka odayaasha soo bandhigida xuquuqda isku dhafan ee shakhsiyaadka markii ugu horeysay ee sharciga xuquuqda aadanaha 1998 iyo dib u habeyntii Scotland Wales iyo Ireland waqooyi laakiin muranka dib u habeynta dastuurka ee dhawaanahan ayaa dad badan waxay u arkaan inay dastuurka ka dhigtay mid aan dabacsanaan ka jirin dhinacyada qaarkood waa wax laga doodi karo tusaale ahaan in waligood dib u heshiisiinta baahinta xukunka dib looga noqon karo yaa dejiyay shuruucda dalka lagu hago dalkan aynu aragnay weyn Ingiriiska dalkan Ingiriiska ah ee qaniga ah ee aynu aragnay bal yaa dejiyay shuruucda lagu hago yaa dejiyo baarlamaanka oo ka kooban 3 qayb oo kala ah boqortooyada aqalka xildhibaanada iyo aqalka odayaasha si xeerarku sharci u noqdaan waa inay labada aqal ay ansixiyaan isla markaana la siiyaa ogolaansho boqortooyada habdhaqanka heshiiska xilligan waa in boqoradu ay isla markiiba siisaa ogolaanshaheeda inkastoo ay leedahay diidmo aan soconayn meeshan waxay tahay markii barnaamij iyo la dejiyo howlo boqortooyada waa inay saxiixdaa haddii saxiixi weydana waxba lagama soo qaadayo marka waa sidaas insha Allah barnaamijyada dambana insha Allah waxaan rajaynaynaa oo aan si fiican u faaqidi doonaa dastuurkanaga dalka Soomaaliya insha Allah waxaan rajaynayaa meelo fara badan oo shacabka u baahan in loo ifiyo ayaa ku jirto marka insha Allah midaas ayaan ka howlgali doonaa hadduu Ilaahay idmo insha Allah waxa walaalkiina oo idin leh is arag dambe oo xiiso badan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.